20 sano jira midna 20 sano jiro dee niman dhaadheer oo noqday xoogaan halkan aan ooyayaan ninkii tolay maantana naag buu guursaday markaas inamadaydu waxay leeyihiin ninkan xuna maalin kasta walaashay ka oohinaya waanu dilaynaaba markuu yimaado halkii baan joogayo islaanta waxay ku tiri istaji shaydaanka iska naar waxaa laga yaabaa inaanay waxaan waxba ka jirin inay wax ka jiraanna waa macquul shar iyo khayr ba u toogahay laakiin istaji waxaa tahay xaamilaa tahay dhiigara isku ridi ha yimaado isagu markuu yimaado in arki doonaa isagii baa yimi aniga laafta ku dhig war naag baad qabtaa waa tan ila soo hadashay markaas wuxuu leeyahay naag ma qabo markaas maxaa halkaa tusay barta halkaa ku taala maxaa tusay والله لك مع يدي أديك وحين تسلك كارنا ده أنا وأنا أركي لو يا لا يركب وين قرتها ما بختينا هاي ده أنا وحلو محاد كشكانسا markaasaan ku iri adiga hadii hadda ninku yiraahdo halkaasay bar ku yeelahayd maxaad adigu sameyn lahayd maxaa adiga kuu geynay ninka isagii baba xanaaqsan maxaa adiga kuu geeyay naagta way ay u aragtay halkii baan isqabsanaa markaas intuu halkaa istaagay horta adigu doqon baa tahay sanbacad weynaatay baa tahay gurigaagan in lagu furana waad istaahishaa gurigaagana naag baa kaa duminaysa uu cadhoodo uu iska baxay inankii hadduu dhowr casho maqnaa shaqadii buu tegey bil buu ku maqnaa uu soo noqday habeenkii dambe uu yimi halkan soo fadhiiso buu igu yiri wuxuu ii wadaaba idinla tahay waraaqdii wuu xanaaqay dee muuse xanaaq wuxuu ii daaray video buu ii daaray uu naagtii kasoo duubay isagoo le walaali ilaahu haddaynu kala tagnay oo calafkeeni dhammaaday maxaad gurigayga iyo reerkayga iiga duduminaysa ay leedahay heblaayaan soo siiyay lambarkaaga oo heblaayaan soo siiyay oo taa kale aan soo siiyay oo waxaas oo dhan anaa sheegay oo ballan waxaan ku qaaday inaan gurigaaga dundumiyo naagtaas soo qaybsay wiil markii horena waan kuu sheegay laakiin adigu waxba ma garanaysid waxna ma maqlaysid sanbacad baa tahay orantiisa waxbaa la hubsadaa halkii baan haygareeyan ku dhawaay raal ah oo cudbaa saarjim shaydaan baa waxay qurxay wanka halkaas baan ka xanaaqay halkii tiimi ku degtay ilmihii baan dhalay ilmihii afraad baan dhalay ilmihii shanaad markaan dhalay oo aan sidiisu ugu faraxsannahay oo aan isla qumanahay oo aan shaxshax isku nahay oo aan daadax isku nahay oo shaqadii 3 bilood tago inta kalena aniga ila joogo ayaa maalintii dambe isagoo ka yimi shaqadii ka yimi oo soo socda buu wuxuu ku galay jidka shil markuu galay ayaan dhakhtarka ugu tagnay oo nala soo wacay koomu ku jiraa marka koomadiiba kamuu soo bixina uu ku rawaxay la hawla walaa quwwata illaa billah markuu rawaxay ayaa de marka aniga xaaskiisii waraaqihii lagu aasay wixii aniga laga rabaa inaad saxeexo deedna waxa ii yimi niman wadaada ah iyo niman tolka ah ayaa maalintii dambe ii yimi markii biriyo kale la aasayo oo macaa salaamihii u dambeeyay de aan u tegi doono aan markii u dambeysay soo arkayno oo markaa la aasayo ayaa waxa ii yimi dhowr nin oo wadaada iyo dhowr nin oo tolka oo wada socda waxaan moodaya markaa anigana tacsi igu yimaadeen laakiin maxay igu yimaadeen bay idinla tahay والله ما نقانو waxay igu yiraahdeen adeer halkan soo fadhiiso markaa waxaan isleeyahay tacsi bay kugu yimaadeen inay ku sabarsiiyaan markaas waxay igu yiraahdeen halkan soo fadhiiso hebel uu dhintay ilaahay ha u naxariisto maanta waa marxuum ma hadli karo waxba ma samayn karo inaga maanta adduunka joogna inaga hadli karayna arrin baan rabnaa inaan kuu sheegno waxa hadalka kaa soo baxayana in aad intaadan odhan aad ka fikirto aad hadalkaaga qiyaastana waan rajaynaynaa aanad wax khaldan ku hadlin waxaan leeyahay maxay soo wadaan maxay ku odhan doonaan tacsidee saan laysuguma tacsiyadeeye waxay igu yiraahdeen marxuumku intuu noolaa gabadh kale uu qabay
laba caruurana way u haysaa يا marxuumku intuu noolaa gabadh kaluu qabay إنا لله إنا لله سو كده أرني سبحان الله laba هاي caruurana way u haysaa markaa gabadhii ayaa waxay rabtaa inay timaado oo ay meydkiina ku sabarto caruurtiina ay gabadha xoogaa yar weyna ay gabadhuna inanta yarana ay aragto aabaheed maadaama aad meeshii joogto way nala noqon weyda inaan adigoon ogeyn aanu gabadhii ku dul keenno markaa waxaanu rabnaa inaad ogaato gabadhaasiina imanayso una ogolaato markaasaa intaa sare kacaba ilaahay godka kugu cadaaba إنا لله وإنا إليه راجعون markaasay dhahay astaqfurallah markaasaan astaqfurallah anigii idhiya fadhiistay markaasay igu dhaheen shaydaanka iska nac shaydaanka iska nac waa marxuum iminka markaasaa oo cafi adeer cafi bay leeyihin marxuum weeyaan عفي ورنتي سميدان عفي سين يا xagee أعوذ markiiba بالله waxaa la booday ilaahay godka kugu cadaaban markiiba la booday hadalkii u horreeya iga soo baxay baa ahaa markaasaan waxaa leeyahay way maanta hadduu noolaan lahaa waxaan ku samayn lahaa taan ku dhigi lahaa markaase waxay كم leeyihiin قاربا ميت كي حتى لما نعفنين ما نعفنين وهنت وانا عفين لا وقصلك وانا عفية ميدك لذي كل فيه هاي markaasaa waxaa leeyahay way maanta hadduu noolaan lahaa taan ku dhigi lahaa waxaan ku samayn lahaa miyuu i khiyaa markaasi waxay leeyihin waa meyd cafi adeer cafi astaqfurallah adeer cafi culimadii areeraha iga taagan yihiin markaasaan kuli waan saamaxay markaasay igu yidhaahdeen hayaay oo maan cafineyntu ma yaree ها walaa والله وحنا xawla سين walaa يا quwwata دمر مع واحد كاجد بتجين حباش هاي deetana waayahay baan ku idhi waan cafiyey iyaduna ha timaado ha ku qanacdo meeshii anigoo jooga ayay soo gashay هاي naagta mabaan garanayne caruurta yaryar ay wadataa caruurtaydaa saa looga soo jeexay waxaad moodaa in saa loo kala jeexay واقرتها inanta weyn baa markaa aad aabaheed u jeclayd oo ooyeysa inanta yareedda waana agoon waana caruurteeda walaashooda inanta yareed baa intaan ka naxan laabta saa u soo geliyey baan ku idhi aamu eedo saa dhabarka ugu salaaxay هاي way soo aragtay halkanay soo istaagtay waxay tiri de samir iyo iimaan ilaahay ha u naxariisto maanta waa marxuum maxaan idin khalday qosolku waan cafin lahaa waa saxsantii maxaa dhacay haa qosolku waan cafin lahaa weye haya iyadina intay saa iisoo istaagtay dibde walaal samir iyo iimaan maanta wuxuu ahaaba uu dhinto waa marxuum bay tiri intaa markay tiri caruurtii kaxaysatay way iska baxday waa la aasay halkii baan asaydii qaadnay labadayaduba deetana gabadhii baan garaacay gabadhii markaan garaacay baan ku idhi wax kastoo jira iyo wax kastoo inaga dhexeeya marka laga yimaado caruurtaada iyo caruurteedu waa walaalo isagana ilaahay ha u naxariisto inagana samir ha inaga siiyo caruurteena wax hantiya ma idinka tegi iyada weydiinaysaa haa haya markaasay tiri de naag la qarinayay bay ahayd hantidu xaggee uga imanaysaa lacag baa jirta marka anigii akoon gooniya ka dhigton bil kasta ka qaadi jiray akoon iigu jirto badan markaasay tiri may wax hantiya noogamuu tegin laakiinse reerkaygiiba halkan degan oo caruurta hooyadii baan u dhiibanaya anigaa usoo shaqeynaya haya subxaan allah laakiin wax hantiya noogamuu tegin markaasaan ku idhi oo anigaa usoo shaqeynaya laakiin hadda xoogaa waan yar xanuunsanayaa xanuun baan yar dareemayaayo beebigii saddexaad ayaan caloosha ku sidaa oo hadda bilow ah waan ka naxay markaa waxaan uga naxay 4 bilood iyo 10 cashaan anigu asayda sidayaa laakiin iyadu 9 bilood ilmaha uurka ku sido asayda way sidaysaa subxaan allah waxaan tiyana ma haysto deetana waxaan ku idhi waxaad samaysaa waxaad iisoo dirtaa baasaboorkaaga iyo liisankaaga iisoo dir 2 guryo aan ku leeyahay Kenya mid ahaan baan kugu qorayaa caruurta yaryar ku qorayaa kaarkaaga bankigana iisoo dir maasha allah maasha allah wax fiican ay samaysay wallah maasha allah haya kaar bangigii bay iisoo dirtay lacag 30 kuna ayaan ugu shubay
ما شاء الله. ها. labadii gurina guri ahaan baan ku qoray. الله أكبر. هاي. gabadhii ilmihii way dhashay farxad bay horta la ooyday waxay tiri adduunka qofkaa wanaagsan maan arkin maanta haddii aadan ii soo diri lahayn khasab waxay igu ahaanayd anigoo asiisida oo uur nale inaan usoo shaqeeyo caruurteeda sidaad iiga farxisay ilaahay ha kaaga farxiyo ilmihii bay dhashay ilmihii markay dhashay na waan u tegey umushii waan kasoo saaray markay timaado aagan timaado waxay timaadaa iyadoo caruurta hadiyad u wada gabadhii waxaanu noqonay saaxiibo nafta isku bixiya iswaca isla sheekaysta maanta oo kale haddii asaydii dhigtay markay ilmihii dhashay ilmihii dhowr sano u gaadhay maanta oo kale hadday nin soo barato iyadoo ila kaftamaysay tiraahdaa ka war haddaan kana wada guursano kanaan maanta soo bartay hadday nin soo barato maanta nin baa soo bartay halkaasoo saasoo ka war haddaan kana wada guursano sidaas baan isla gaadhnay nin baa guursaday anna hadda nin baa qaba ninkii caruur u dhashay anigana ninkii ilmo 6 ayaan ninkaasna u hayaa markaasaan wada joognaa gabadhiina best friend baan nahay ninkiina waan saamaxay markastana waan u duceeyaa wax baan u sadaqeeyaa sheekadan gabadhu ma tartan bay rabtiin ka qayb gasho mise soo dhiibto may way soo dhiibtay uun mid labaad baan ku soconaya oo codeyn laaba sheekadan oo codeyn laaba ma sha Allah ku soco laakiin oo codeyn la sheekadan wallahi sheeko waaran way laakiin xagga dambe waxa way gabadhu wax fiican bay samaysay lagu daydo way Allah ha barkeeyo xoolaheedii ubadkeedana ha barkeeyo amiin da haya sheekada labaadan ku socda gabadhaan u sheer garay shalay baa la soo dhiibay caaw sheekooyinka ugu macaanaa dhan baad afka ka soo qaadeen yaa caaw ka warma xaalad ma idin jecjeexeen hablow yaa maxamed codkaaga ogo aya saaxib hadda caadi ma maqlaysaa ها آديات حاليا عاو عادي ما هي شكوين يكون كوا عشان هذا هو كسي ترين إلا أنت رمضان لقلا يسون يدين شاقي أنا عاو مد حالة هذيك تحكي وأنا يديك الشيكي هبين دمنا ما عندك شيكينا شيكي دي شيكوينك إن شاء الله تعالى تي شيكوينك إريتي يا واي هاي شيكا كلا كلول أو تي كدرا تي تدي فريسو وديار كرو ما تي كلول ها هاي فاطمة ما تقول قلت عوا